السلام عليكم. maanta waxaan dhigan doonaa casharkii 13aad ee isu qaybinta tirooyinka inagoo ku sii socon doonaa isu qaybintii tirada wax qaybinaysa ay ka koobnayd labada god. tusaalayaashan baynu eegi doonaa. tusaalaha koobaad haddaynu eegno 7242 loo qaybiyey 20. marka hore waxaan raali ka gashanaa tirada la qaybinayo 7242 loo qaybiyey 20. marka hore waxaad raadinaysaa tirada wax qaybinaysa lambarkeeda ugu horeeya labada a tirada marka lagu dhuftaysiisa 7 ama ugu soo dhow 2 3 ku dhufo waa 6 ayaa ugu soo dhow. marka 3 ayaan waxa ku dhufanaya 20kii 3 20 ku dhufo waa 60 way ka yartahay 27 marka ka yara sareysay 24 ku dhufo waa 8 ka badan tahay marka 3 bay ugu soo dhow oo 60 kay siinaya marka 3 ugu soo dhufso 20 60 bay siinayaan. marka waad soo kala jaraysaa labadan halkan waxay ka soo haraya 1 halkan 2 waa 12 buu ka yaryahay tirada wax qaybinaysa marka lambarka kale ee la soo taagay ku xiga 4 marka waxaad raadinaysaa tirada wax qaybinaysa lambarkeeda ugu horeeya labada a tirada marka lagu soo dhufto ay siinaya 12 waa 6 laba ku dhufo ayay siinaya 12 marka 6 badan waxaad ku dhufanaysaa 20ka 6 20 ku dhufo waa 120 kaas ay soo dhow marka 124 raadinayo marka 6 marka ku soo dhufto 20 waa 120 marka labadan soo kala gooyo waxay soo haraya 4 oo ku yartahay tirada wax qaybinaysa marka tirada ku xigtay la soo daadaji ee labada a tirada marka 20 lagu dhufto siinaya 42 ama ugu soo dhow waxay ugu soo dhow laba baa ku dhufanaya 20 40 bay siinay kaas ay ugu soo dhow 20 ugu soo dhufo waa 40 marka soo kala gooyo halkan laba ay ka soo haraya laba tiro kale la soo taagay mar haddaan jirin labada haraa ayay inoo noqonaysaa waynu qaadi jireen sida sameey jirnay intaanu qaadno ayuu keenina xagga sare jawaabteena ku darsanaynaa haraa laba. tusaalaha labaad haddaynu eegno 8472 loo qaybiyey 22. marka sida sameyn jirnay marka hore waxaan raad kala gelinaynaa tirada la qaybinayo 8427 loo qaybiyey 22. marka waxaan raadinaynaa marka hore tirada wax qaybinaysa lambarkeeda ugu horeeya ee labada a tirada marka lagu dhufto 8 siisa waa 4 afartii waxaan ku soo dhufsanayaa 22 marka 4 ku dhufto 8 bay soo baxaysaa way ka badan tahay 84 hoos u dhig 23 ugu soo dhufso waa 60 marka 3 bay ugu soo dhow 3 baan u saarnayaa boos koobaad mooyaane ka labaad 3 ugu soo dhufso 22 waa 60 bay ugu soo dhow 84 marka loo eego 60 marka soo kala go waxa halkan iga soo haraya 1 halkanna 8 state buu ka yartahay 22 marka lambarka la soo daadaji labada a marka waxaad raadinaysaa tirada wax qaybinaysa lambarkeeda ugu horeeya labada a tirada marka lagu dhuftay 18 waa 9 marka 9ka ayaa waxaan ku soo dhufsanayaa 22 marka 9 ku dhufto waa 198 way ka badan tahay hoos daadag 28 ku dhufo 176 marka waxaan ku soo dhufsanayaa 8 ayaa igu soo dhow 8 marka ku dhufto waa 176 marka labadan soo kala jiro waxa halka dhiga soo haraya 6 way ka yartahay tirada wax qaybinaysa marka lambarka ku xigay 7 marka tirada marka 22 lagu dhufto isiisa 67 sidaan hore usoo aragay waxaa siinaya 3 66 buu siinaysaa hore usoo aragay 3 marka 22 lagu soo dhufto waa 66 marka labada soo kala jiro waxay ka soo haraya halka wuxuu noqonayaa haraa maadaama lambarka la soo daadagaani jirin haraa buu noqonayaa waa dalac ayaa sameyn jiray jawaabteeda ku darsanaya marka haraa hal baan oranayaa halka ay maanta casharkii lagu joogi doonaa waa inoo iyo casharka kan xiga iyo wiiga dambe haddii alla idmo intaa ka horeysa assalaamu calaykum.